أنا وحواي قيبتيني لبعض. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا لا ينساك دوما. waxaan maantay ka hadlaynay korinta iyo nafaqada dhirta iyo khudradda kala duwan. meeshana waxa waaye qaybteeni labaad. waxaa inoo suurta gelisay shirkadda Bararo Fruit Empire ayaa noo suurta gelisay inaan idin qabano maaragtay cashiradan iyo maaragtay xogtaan aan idin soo gudbinayno. kolley waxaan ugu soo numberkanaga waa naga haysaan, waa numberkaas xaruntanada Nairobi nooga furan. Soomaaliya insha Allah waan rajaynaynaa sida hore in kugu sheegnay. qaybtii hore waxaan kaga soo hadalnay barbaarinta dhirta iyo khudradda xilliga ay ku jiraan nursery-ga ama xilliga ay ku jiraan waxa la dhahayo meesha lagu buubiyo ay ku jiraan ilaa ka ay ka soo gaaraan xilliga la talaalay. waa la talaalay ama waa la abqaalay, dhulka la geliyay, nafaqadii la siinayay ilaa waxaan ka soo hadalnay ilaa xilliga flowerinka la gaaro. xilliga flowerinka ama booqa ama xayga soo saaraan geedaha. xayga xilliga geedaha soo saaraan maxay u baahan yihiin? waxay nafaqa nooc may u baahan yihiin? nafaqada dhulka. marka nafaqadanada ah xooga saarayna maanta waxaa waaye nafaqaadka geedaha caleenta laga siiyo. kuwa dhulka laga siiyo laazim kuwaas waa muhim, laakiin dhulkaada hadduu dhul nafaqa fiican yahay, dhul bacrimisan yahay, dhul maaragtay aad dilan yahay, kuwa caleenta kugu filan. marka geedka ama khudradda xilliga ay miraha ay soo saarayso waxay kaaga baahan tahay waxa la dhaho high potassium. potassium waxay u fiican tahay xagga mirta, booqa geedka inuu badiyo. booqa markay geedkan markuu booqa soo baxo ama xayga dhaliyo ama flowerka dhaliyo ama ubaxa dhaliyo, inuu flowerkaas uusan dhicina mir isku bedelo. يعني qaar waxaad arkaysaa geedihii xayg way soo saarayaan, ubaxi way soo saarayaan, laakiin mir wax yar baa mirta ka noqonaysa. maxaa yeelayo? number 1 waxaa ku yar potassium ka ku yar. greenhouse ka haduu yahayna waa in greenhouse waxaad arkaysaa dadku ma yaqaanaan xilliga greenhouse ka geedka uu xayga soo saaray tamaandhada ama barbarooniga inaan la sheegaray in lagu dhuftaan rabaa oo geedka la dhaqdhaqaajiyo soo maartay ayaka geedahaas isku bacrimi waxa la dhaho dhaqdhaqaajis. yani waxaa la rabaa xayga inuu soo daato waxa ku jiro oo la dhahayo pollenka inuu soo daato kan kale soo gaaro. pollenka ama habaas Soomaaliya waxa lagu dhahaa habaaska in la booqa markii wax budabada ah ku jira. budabadaas hadii la dhaqaajin si tomaatada greenhouse ka miro iskuma bedelayaan. potassium xataa hadaad siisay taasna way u baahan yihiin. marka greenhouse ka aroortii hadda la soo galaa dhaq ul baa lagu siiyaa, siliga kore yaa dhaq ka siinaysa, waa lagu soo wareegaya. waad ku soo wareejinaysaa xilliga flowering every 3 days every 2 days waa inaad samaysaa. marka muxuu u baahan yahay geedka xilliga miraha iyo booqa uu dhalinayo? waxa u baahan tahay potassium sareyso oo meel sare ah. sidoo kale waxaad u baahan tahay geedka xilliga ayada ah wuxuu u baahan yahay baashan la dhahay optimizer kan horey baa u sheegay. waxay ka caawinaysaa optimizerka waxaan niri waxay idin ka caawinaysaa geedkan inuu hadda for example nafaqaadka siinayso si fiican u qaato, si wanaagsan u qaato, si heer sare yani nafaqaadka laftirkeeda qaadashadoodu ka caawinaya. ayadana waa nafaqo kale. ayadoo nafaqo ay kale waxay ka caawinaysaa nafaqaadka kale inuu geedka sii qaato. yani nafaqo la kala isku daray, labadooda waa isku daraysaa. hadda tan marka ilaa goorma isticmaalaysaa? xilliga geedka ubaxa every week ama every 14 days ama every week waa siin kartaa. every week yaa siin kartaa, yani isbuuc walba waa siin kartaa. waxaana laga isticmaalayaa 30 to 40 gram. hadday geeda fruit trees yihiin meeqaad ka isticmaalaysaa? fruit trees yani xilliga booqa ay saarayaan 80 ilaa 100 gram baa ka siinaysaa.
wixii fruit trees ah hadday galey tahay ama ay tahay wixii kale oo masaga ah waxaad ka siinaysaa iyagana 100 gram waxaa jirta wax loo soil drainage sometimes qof wuxuu sameeyaa geedka meesha caleenta ka siin lahaa dhulku ka siinaya taas meeqa ka siinaysaa 80 gram 20 liter baa ku qasaysaa mar walbana biyo 20 liter baa lagu qasayaa qaadada ku qasaysana waa tanaaba iri waa tan hadda kaligeed 10 gram bay qaadaa qaadadan waa qaadada raashinka ku cuno qof aan aqoon ma laha raashinka lagu cunaa 10 gram bay qaadaa halkii marka 40 gram hadii lagu leeyahay tan oo min 4 ah 50 gram tan oo min 5 80 gram tan oo min 6 sama fahmin mid waa tan oo waxa lagu isticmaalayaa xilliga geedka uu leeyahay booqa iyo xayga ama booqa midka dhahdid ama muxuu caleen ha noqoto ama ha noqoto muxuu la jiray qudrad ama geed ha noqoto mid walbana waxaan iri waxay ku qoran tahay habka isticmaalka ah halkan isbuuc walba ka dibaasinaysa ama 14 baribo waa tana halkan ay ku qoran tahay wax aan iska sheegay ma ah 14 apply at 7 to 14 days interval يعني xilliga for example roob baba daayabo roobka xilliyada uu daaya ama xilliyada maartay abaarta jirto kale biyo yarida jirto waxa uga dhigaysaa 14 days xilliga roobkana waxa uga dhigaysaa every 7 days baa siinaysaa marka hal raaco recommendation ka waxa lagu qasay reedkana maxaa ku qoran meesha 20 ml 20 liter maxaa laga wadaa yani waxa lagu qasayo yaa 20 liter ah bamka la isticmaalo buufinta ah yaa halkii mar oo la qasaya wuxuu qaadanayaa 30 gram oo qaadadan ah oo min meeqa ah min 3 ah maxaa 20 liter hadii aad 100 liter qasayso bam ah 100 liter fuusaha ku qasaysaa meeqa buu qaadanaa u qaybi 3 min 100 baa wuxuu qaybinaysaa 20 3 min 5 ah 3 min 5 waxa waa 15 oo qaadadan 1 2 3 4 15 jeer baa ka qaadanaysaa 15 waxa waa yani 150 gram waa 150 gram bay noqonaysaa marka gramka la iska saxo daawada bahalaha nafaqaadka si loo isticmaalayo la iska saxo maxaan isticmaali karnaa xilliga tan waxa kale oo isticmaalaysaa xilliyada geedaha waxa la isticmaalaysaa daawo kale daawadana haysataa tan waa tii cayaanka looga tagayay waxa haysataa mid cudurrada looga hortagayay for example tan daawadan waxay controlshaa down mildew iyo waxay ka hortagtaa tomaatada iyo blightka late blightka early labada nooc bay ka hortagtaa fangolka cudurrada fangolka ah oo waxyaalaha fangolka lagu garto waxa way kalaradaas ay noqdaan madmadoobaad marka ku aragto ama jaale hadaad ku aragto oo jaale caleenta fuushay oo kale waa cudur iyo cayayaan waxa la dhaha jiro taasna waad baran doontiin insha Allah waxyaalaha soo wadno koorsada aan soo wadno koorso waxaan soo wadnaa tomaatada cudurrada iyo cayayaanada insha Allah waxba ka taaban doonaa insha Allah kaasa ku baran doontiin laakiin muhiimadda waxa waaye in marka tan siinayso tan caleenta xilliga nafaqaadka ah caleenta siinayso waxa la siin kartaa daawadana la siin kartaa oo cayayaanka uga hortagayso waxa la siin kartaa midaan oo cudurrada uga hortagayso optimizer waa aad bay muhiim inta inaad la isticmaashid integra laga maarmaan waaye tan waxaa la dhahaa saliidayso yacni waxay sameynaysaa way faafinaysaa saliidayso iyo faafiso labada waa laha yacni waa sidii saliid bay u taalaa daawada iyo nafaqada markaad ku dhufato maxaa la dhihi jiray qudradda iyo geedka ayay waxay sameynaysaa meeshayna caleenta ay biyaha gaarin iyo gaarsiinaysaa for example caleenta markaa halkan oga buufiso qaybtan hoose ayadaa gaarsiinaysa adoona la gaarsiin marka waxaa la dhahaa integra la dhahaa waa bahal saliid ah aad u muhiimsan faafisa ani ada Soomaali hadaan waan dhaho xadilo waxa la dhahaa faafiso saliidaysana waa la dhahaa si saliid bay u taalaa way faafinaysaa sticker English ahaan waxa la dhahaa sticker la dhahaa yani waxay ka dhigaysaa wixii wax ku dhagdhagay dhagdhagaas wuxuu ka caawinayaa daawada xilliga roobka inaysan dhaqman for example roob jug ah imaaday maanta nafaqadii daawadii siisay roobku uu dhaqaya daawadii Soomaha marka muxuu sameeyaa ayadu way qabanaysaa inuusan maartay ay daawadaas iyo nafaqadaas inuu geedka ka dhaqman iyo ku qabanaysaa sidoo kale maxay sameynaysaa way faafinaysaa geedka xilli caleentiisa meesha aad daawada la gaarsiin meesha hoose ama lafta oo cayaanka ku qarsoomayay yay gaarsiinaysaa way faafinaysaa marka muhiimadaas ay leedahay bahashan noocyo badan baa jirto integra company midana ugu caansan
kambani kalena wuu jiraa isla bayarkan mid buu leeyahay kambani kale mid buu leeyahay marka tan hadda green life iskale inta garadaan waa muhiim size yar size weyn 1 liter intaasoo size la helaa waana aad bay muhiimka u tahay beeraleyda xilliga ay isticmaalayaan nafaqeynayaan iyo xilliga cudurrada iyo cayayaanada ka hortagaya inay bahashan isticmaalaan iyo tan optimizer muhiim optimizer in stage baa la isticmaalaa muhiim badan bay leedahay waana ka soo hadlay waxyaalaha muhiimadda ay leedahay maxaa noo soo haray marka waxaa noo soo haray wax la dhahayo tan waa taqaanaan bahashan belt waxay ka hortagtaa wixii diir oo dhan bolworm ya English lagu dhahaa bolworm ba Kenya looga yaqaana waxa tuta absoluta hadaad maqashay bahalka tuta absoluta la dhaho oo dadka aad u dhiba beeraleyda yaanyada aad u dhibo tuta absoluta bahashana ka adag beltidana ka adag iyo nooc kale ilaa 3 kambani baa jiro kambanigan bas ama isticmaalaysid ilaa 3 kambani 3 daawo kambanigiiba laba xabo tan oo kale u leeyahay marka waa isku daraysaa laazim waxaa laga maarmaan ah inaad isku dartid oo kaligeed isticmaal sababtoo daawooyinka cayaanka wax ay sameeyaan baa jiro cudurrada cayaanka siiba cayaanka wax la dhaho waxay sameeyaan markii daawadan ku celceliso waxay sameeyaan marka dambe ka hortag bay waxay sameeyaan natural ah daawadan wixii looga hortagay si natural ay waxay sameeyaan marka dambe waxba xeer waxay gaarayaan daawadan kaligeed wax ka tareen marka waa loo kala bedelaa maanta marka isbuucan marka tan ku dhufato isbuuca labaad waxa ku dhufanaysaa mid kale nooc kale ah ku dhufanaysaa waa u kala bedelaysaa way weeraraysaa marka ma waxaysan karto inay awood uma yeelanayso inay waxaysato hortag inay waxaysato si natural wayna waxaystaa waa wax xaqiiqo ah marka waxaa noo soo haray xilliyada waxaa noo soo haray intaas markaa ka soo gudubno xilliyada roobka badan xilliyada abaaraha jiraan waxyaalo recommendation oo la isticmaalaa jiro oon ka hadli doono waxaa ka mid ah calcium xilliga geedka uu maaragtay roobka badan yahay dhulka waxaa ka dhaqmo macdanta ku jirta oo muhiimka ah macdantan oo kale hadda potassiumka xilliga dhulka uu ku jiro geedka maxaa muhiim u ah potassium muhiim buu yahay xilliga miraha ah waxaa kaloo muhiim ah calcium trace element waxyaalaha la dhaho waa element macdooyinka kale macdanta kala duwan sida boronta waa kuwa magnesiumka kuwaas aad buu geedka ugu baahan yahay xilliga uu korayo oo miraha yeelanayo miraha ay saareen geedaha aad buu u baahan yahay xilli roob badan baa lagu jiraa maxaad samaynaysaa calcium waa inaad isticmaashaa dhulka qaarkood waxaa jira dhul markii soil test la sameeyo dhulka la baaro ay calciumkaada uu ku yarya lagu dhaho magnesiumka kugu yar boronta kugu yar lagu dhahayo xilliga ayada marka waa inaad samaysaa xilliga ayada marka waa inaad isticmaashaa bahashan calcium bas ma ahe maxay wadataa trace element calciumka intuu dhan yahay marka 14 yuu dhan yahay 14% marka calciumka waa inaad isticmaashaa xilliga geedka koritaankiisa aad oo maaragtay uu korayo sidoo kalena xilliyada roobabka badan xilliyada abaaraha waxaa lagu yiri plant growth periods that require relative high calcium iyo magnesium levels waa xilliga miraha uu geedka leeyahay mirta waxa lagu sawiraa waa inaad fahantaa 30 to 40 gram baana laga isticmaalaa marka taasi waxa uga gudbaynaa marka calciumka waxaan ku yiri waa maado aad u muhiim ah xilliyada roobabka badan ama markii soil test lagu dhaho geedaha oo calcium la'aan geedka for example tomato abuurtay lack of calcium inuu yahay waxaad ku ogaanaysaa mirta yaa salka hoose ama ha noqoto ama tomato ha noqoto ama ha noqoto barbaroni halkaas kalka hoose yaa madoobaad noqonayso halkaas hoose mirta hadda halkan qaybtan hoos fiirinayso yaa way madoobaanaysaa ama mirti waxaad arkaysaa ubaxi oo dhicinayo iyo mirti oo madoobaanaysa waxa keenayana calciumka ku yar geedka markuu nitrogenka ku yar yahay ama potassiumta ku yartahay waxay noqonaysaa caleenteeda cadaanayso mirti ma noqonayso mid ubaxi ma noqonayo mid dhalayo wuu daadanayaa miro fiican ma dhalayo calciumka waxa lagu garan waxa mirta madoobaad bay yeelanaysaa afka hore bayna ka madoobaan goobaabin yar oo madoobaad haday biyo yari tahay iyo haday lack of calcium tahay labadaba way sameynaysaa waxaa noo soo haray bahashan
aadka muhiim u ah hadda ka horna waa ka hadlay green miracle baa la dhahaa green miracle waxaa la isticmaalaa xilliga ay geeduhu biyo yari haysto qorax zaaid u kulul jirto abaar aad u kulul jirto biyaha ayay u celinaysaa green miracle marka qorax kululta jirto geedka wax alla wuxuu hayo dhan wuu sii deynaya hawada qoraxda ka nuugayso yani biyaha hadday ku jirtay biyihii oo dhan waxaa ka nuugaya baalkii biyihii yaraa oo geedka xilliga abaaraha ay jirteen waxaa ka nuugaya qoraxda marka waxay ka hortagaysaa xilliga ayada miracle wax loogu bixiyo green miracle marka geedkiina waxay ka dhigaysaa green oo green buu ahaanayaa biyihiisina u yaryaraynaysaa nafaqaadkiisina waa u ilaalinaysaa intaba u waxaynaysaa marka bahashaana iyadana aad bay muhiim u tahay waa in xilliyada abaaraha xilliga dhulka kulul oo kale markaad joogto dhulalka kulkulul markaad joogto waa inaan la isticmaalaa muhiim bay aad u tahay xilliyadaas diffusion resistance waxay ka hortagaysaa yani diffusion yani xilliga geedka uu biyaha sii deynayo biyaha uu hawada usii deynaya oo caleenta waxay leedahay meelo yaryar oo gudgod oo tin aad moodaysid uu biyaha kasii daaya hawada ku subo xilligaas inay ka hortagto iyo ka hortagaysaa waxay ka hortag reduces transpiration isla ayada ahayd biyaha geedka uu hawada ku dhuminaya ka hortagaysaa maxay kaloo samaynaysaa closes stomata waxay xiraysaa maaragtay geedka wuxuu leeyahay timo yar yar oo biyaha uu hawada ku sii daayo xilliga biyaha geedka for example geedkan biyo badan buu cabay dhulka biyo badan baa ku jira wuxuu u baahan yahay biyaha qaarkood inuu hawada ku sii daayo laakiin xilliga abaaraha jirto bahasha markaa ku dhufata maxay samaynaysaa wayba xiraysaaba xilligaas way ku xiray geedka meesha uu biyaha kasii deynayaaba dhan bay sharaysaaba way xiraysaa marka sidoo kale waxay ka hortagaysaa xilliyada qabowga badan jiro geedka oo biyaha ku wareegsanayaan oo kale yay xiraysaa xilliyada qabowga jiro kale for example xilliba qabowga jiro tanna waa u isticmaalaysaa green miracle xilliga qabow jiro maxay samaynaysaa geedka dhadaa ku wareegsanayso dhadadaas marka waxay samaynaysaa geedkan inuusan dhadadaas ay geedka nuugine way xiraysaa stomatarka baasha godadka miraha geedka godadkiisa caleenta ku taalo yay ka xiraysaa marka xilliga frostiga xilliga barafka jiro ama dhadada jirto marka green miracle muhiimadaasay leedahay iyadana hala isticmaalo waa wax aad u muhiim u ah cashirkeena maanta waxaa kusoo gabagabeynayaa bahasha waxaa kaloo iloobay wuxol waxaa la isticmaali karaa xilliga inaa ka hadlaa umaleyna xilliga flowerinka waa la isticmaali karaa geedka uu flowerka leeyahay oo miraha iyo booqa saaran yahay waa la isticmaali karaa laakiin maxaan iri yara crop boost lama isticmaali karo tii aan kasoo hadlay tan xilliga flowerinka lama isticmaali karo yara crop boost lama xilliga vegetative basa loogu talagalay maxaa noo soo haray bahashan aadka muhiim u ah yaa noo soo hartay jumbo clean baa la dhahaa maxay nadiifinaysaa jumbo clean waxay nadiifinaysaa qash geedkaada for example waxaa kuu baxaysa geeda mireed baa kuu baxayo waxaa kuu baxaya geedkan la dhahayo liin baa kuu baxayso ama waxaa kuu baxaya babay baa kuu baxayo ama can baa kuu baxayo waxaa beerta marka kaa galay bahashan la dhahayo malabiso ama bahashan la dhahayo afid bahal cadcad oo maaragtay ayada dhanba cad oo aad moodaysid budo ah beerta kaa qabsatay maxaad samaynaysaa marka bahashaas daawa looga hortagaa daawada markii looga hortago maxaa uga hortagaysaa daawadii markii looga hortago malabisada way cadcaddahay geedkii oo dhan bay qabsatay daawadii waa ku dhufatay way dhimatay laakiin meeshii bay ku haray sidoo kale malabisadii way madmadowde bahashan la dhahayo malabisadu waxay ku waxaynaysaa wax madoobaad ee caleenta ku reebaysaa iyo wax saliid midaan kalena waxay ku reebaysaa iyo wax saliid ah geedka waxaad moodaa oolyada waa garanaysiin oolyada markuu cagta iyo markii laga bedelo oolyada mashiinta laga bedelo saliida madoobaadka oolyada Soomaalida u taqaan oo madow oo kale wax ah iyo geedka ku reebtaa midaan kale oo afidka la dhahayna ayadan wax budo aad moodaysid iyo quraanjo yaa meeshi yaa geedka ka buuxdo oo way ku dhagantay wixii hadaad buufisa xataa way ku dhaganaanaysaa mal xal maxaa u amarka what is the solution halka waa jumbo clean way dhaqaysaa waa wax sida saabuunta ah mar alla markay bahashaas u tagto iyada dhanba way ka dhaqaysaa way soo daadanayaan waana wax aad tajribeeyay oo waa hayaa waxaan ku tajribeynay beeraha liinta ah oo anaka manage gareyno oo crop protection kooda sameeyno spray program kooda ahayno
oo gado oo liintooda la dhoofiyo ayaan ku muxuu ahaa ayaa ku tajribeynay oo ku baraaweynay waxaa gashay malabisa si xun u gashay way madoobaysay waxaa la dhahay samarti suutimol waxyaalahaas gashay sidoo kale waxaa galay hanidu wax aan moodaysa ayada dhanba malab saliid ah waxaasa galay wixii oo dhan markii lagu buufiyay way dhaqmadeen waxaad moodaa inaa biyo saabuun ku dhaqday shaamba ah way soo daateen hal maalin bay ku soo daateen waxaan wallahi ben imi sheego qof beeraley ah oo muxuu ahaa u dhiibnay oo bahasha ku daaweyn dhahnay nalana soo wadaag akhbaarna naga sii bahashu way dhaqmatun uu yiri hadalkaas waana wax aawna Kenya waaba laga isticmaalaabo beeraleyda ay dhibtay bahashan malabisada oo madoobaadka olyada aad moodaysid oo geedka in saliid iyo wax madoobaad lagu daadiyay qashin walbana ku dhigayo waa lagu tajribeeyay way ka daadinaysaa jambo cleaner la dhahaa aad bay muhiim ugu tahay wayna daawada marka malabisada markaad ku buufinayso noocay ahaataaba malabisada daawooyin loo isticmaalo strong ah isticmaalaysaa tana ugula daraysaa waxa kaloo kugula daraysaa integradaas labadaba waa iskula daraysaa integra jambo clean iyo daawada malabisada ama afidka bahashaas cadada aad moodaysid wax cadcado budo ah intaba waa isugu daraysaa waana green life kamarigaha iska leh inagana account baan uga furan hadii dadkaaba uga soo adeegnaa marka bahashan hal isticmaalo qof walba oo dhibaatadaas haysato malabisada dhibaato ku haysato oo dhibtay tan waa nafaqo dhaqaysa bahasha laakiin daawada dilaysa maaha way dhaqaysaa daawada dilaysa waa inaad la isticmaashaa taa waa inaad fahantaan insha Allah marka taas waa inaad fahantaan oo la socotaan walaalayaal biidnillah taas la socdo oo fahma bahashan daawooyinka waa in maaragtay sida saxda loo isticmaalaa qofkii rabo sida loo isticmaalo isticmaalkeeda xilliga la isticmaalayo waxaasoo dhan wuu nala soo xiriirayaa biidnillah marka intaasa kusoo gabagabeynayaa wixii su'aalana insha Allah waa nala wadaagaysiin biidnillah nala wadaago wixii su'aalaha oo qabtid